السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكو سلامة سلام كدب waxaan rabaa inaan kaala hadlo wax loo yaqaano ishuf kelmadda ishuf kelmad in badan aan maqla maahan laakiin mowduuca aan raba inaan kaala hadlo waa kelmadda ugu dhoweyn oo adeegsan karo si aad marka horta u fahanto ishufka waxaan ka wado tusaalaha ugu horeeyay kugu tusi kara waxa waaye markii ciidan la diyaarinayo dal ciidan loo sameynayo tababarada ciidanka loo sameeyo wuxuu isugu jiraa diyaar garow jirka ah oo waa la ordisiyaa adkaysiga jirkiisa la diyaariyaa diyaar garow agabka ahna waa loo sameeyaa oo hubkii dharkii wixii u baahnaa diyaar garowga saddexaad laga diyaariyay waa diyaar garowga garaadka diyaar garowga garaadka marka mid ugu badan ee aad loo adeegsadaa waxay tahay waxa loo yaqaan ishufka oo waxa la sameeynaa ciidanka meel la isugu geynaa qof kamid ah ciidanka la istaajinaa waxa leeyahay bal maanta waaga markuu bariyay ilaa hadda ay qoraxda dhacday wixii wanaagid sameeyay bal guriga u sheeg dadkuna waa taqaanaa qofka markuu wanaagiisa ka sheekayna waa amaana markuu is amaana dana guriga ama ciidanka meesha fadhiyo loo weydiinaa waxa leeyahay war ninkan wax oo iska hilmaamay wanaaga hadii jirta cid taqaanay ha loogu daro waa lagu daraa marka waxa lagu weydiinaa haddana si tilamida maanta markaad soo kacday ilaa hadda maxaa ceebo aad lahayd maxaa dambi oo ka dhacay qof bini aadan oo jecel ma jiro marka inuu sheego wax dambi oo lahaa waa meereysana guriga loo weydiinaa ciidanka marka waxa leeyahay war ninkan bal isagoo wasaqaysan oo seexane yaa wax dambiya ku og qofa gacan taaga wuxuu leeyahay maanta qofkan hooyaday u caay waxa lagu leeyahay tusaale ahaan maadaama qofkan hooyadiis caayday xuquuqdiisa ku xadgudubtay sideed u aqbalay haddii uu qofka ka doodo uu yiraahdo aniga waa inaba waa qof muran looba waxa leeyahay qofkan ciidan lagama dhigi karo haddii uu yiraahdo waan sameeyay waxaana waa dambile kadib guriga cod ha loo qaado leeyahay ciidanka cod ku qaada waxa la leeyahay marka hal cafiyo ama hal ciqaabo tii ku soo baxda yaa lagu qaado marka ugu horeeyay marka qofka la barayo marka ugu horeedo oo dabeecad ahaan bini aadanna hortoora waxa dhaqan noo ah in dambiga aad gashay aad sheegataa iyo dambi u naqaanaaba qofka ciidanka ee wadaniyada loo diyaarinayana taasaa la rabaa in laga saaro oo uu dareemo qofka dambiga uu galay inuu qiran karo haddana waxaa kale lagu diidaa markaa dambiga qiranayso in aadan u qiran in lagu cafiyo ee ujeedadu ay tahay inaad ka qowmameynayso dambigaas aad gashay xuquuqigiisana aad diyaar u tahay inaad marto marka barnaamijkaas waxaa la yiraahdaa ishuf waxa uu diyaariyaa marka qofka wadaniyadiisa waxa uu diyaariyaa maadaama khub loo dhiibi rabo dal u dhax istaagi rabo shacab la macaamil rabo waxa la rabaa intuusan talaabo qaadin inuu yacni isxisaabin karaayo ama ishufi karaayo qoladan adduunyadan waxay adeegsataa wax loo yaqaano waxay dhahaan LCA waxay ka soo gaabiyaan life cycle assessment oo ay ka wadaan qiimeynta meertada nolosha ama yacni qiimeynta nolosha waxa jiritaankooda markay waxa isticmaalayaan wax kale loo jeedaan waxa ay ku markii wax la soo saarayo aalad ama qalab la sameynayo iyo LCA gaas la geliyaa tusaale ahaan hadda mobile aan idin kala hadlaa mobile kan intaysa sameyn ka hor waxay geliyaan waxa loo yaqaan LCA waxay yiraahdaan LCA gu afar wado iyo xamuul oo mara wadada koowaad waxa waaye taleefankan hadda muxuu ka samaysan yahay waxaan ognahay inuu ka samaysan yahay miraayad caag biro miraayad iyo caag iyo biro xagee laga helaa dhulka laga qodaa waxa leeyahay marka intaan miraayad iyo caag iyo biro qodayno meeqa tamara oo energy ayaa gelayso meeqa wasaqa ayaan hawada ku deynaynaa oo bini aadamka dhibaato u keenayso taa marka waa marxaladda koowaad qaanada labaad oo soo galaa waxa waa warshada sameynayso waxa leeyahay warshada inay mobile sameyso
meeqa tamar inta matooro la shida gaas kale la guba ee warshada lagu kiciyo oo qarashaa galayso. ha yeeshee meeqa wasaqa ah haddana inta hawada ku dayno oo noolihii iyo beerihii dhibaato u keeni karaa. taa marka waa qaanada labaad. qaanada saddexaad waa qaanada annaga aan ku jirnay ah isticmaalka. oo hadda mobilkan aan isticmaalayo muxuu dhibaato oo adduunka ku haya. dhibaatada uu ku haya waxaa kamid ah caawa dhan jaarjar iigu jiraa. jaarjarkaas ama dabkaas aan gelinayo matooraa shidan. matoorkaas gaas badan oo gubooyaa, hawada qaac uu ku furooyaa. marka yacni waxaan soo kordhinayaa culays badan. waxaa kaloo imaan karto haddii aan bil kasto mobile cusub soo galo, micnaheedu waxay tahay waxaan bilaabaa in god kale la qodo, caaga kale lasoo qodo, warshad kale haddana la shido, mobile kale lasoo sameeyo. laakiin halkan haddaan haysto waxaan baajiyey in wasaq dambe la abuuro. marka inaad 10 sano hal mobile haysato si dadbana waxaad u badbaadinaysaa ummadda aad la nooshahay ifkaan kugula nool. taana marka waa qaanada saddexaad. qaanada afraad waxaa waaye markii uu halaabo ama uu gaboobo taleefanka aad u baahan ee aad tuurto, ma qashin qubkii ku badanayo dhulkii naga buuxinaa mise wax dib loo isticmaali karo, waxay recycle-ka ay dhahan laga dhigi karo waaye. taa lafteeda maxay dhibaataa ay nolosha ku keenayaan. marka iyaga adduunkan LCA-ga waxay u adeegsadaan wax soo saarka oo kaliya. xagga bini aadamka dhan u fiirin annaga oo aan idhaa Soomaaliya tusaale ahaan Soomaaliyaan nahay. hadda warshado iyo qalab iyo waxba sooma wasaarnaba. adduunyadan markaan qurbo joogta dhalinyarada ay masawiro iska qaadaan ay dadkeeni tusaan, dadku wuxuu arkaa guriyada qurux badan, gawaari, horumar. marka horta sida xaqiiqada horumarka adduunka oo gaaray dad ma ahane waa agab, waa bridge, waa wadooyin, waa telefono, waa telecommunication. laakiin horumar badadeed ma uusan gaarin. Soomaaliyana maanta inaan mobile iyo computer iyo waxa samaysano maadaama ay qarash iyo waqti badan u baahan tahay, waxaa jirta haddaan hal shay horumarino oo adduunka oo dhan dhahayo waxaan rabnaa sida Soomaaliya oo kale inaan noqono. halkaasina wax kale maaha, waa inaan dad soo saarnaa, dadka horumarinaa, dadkeena aan horumarinaa. sidee marka dadkeena ku horumarinayna? habkii ama systemkii oo LCA ama life cycle assessment-ii haddaynu dadkeena gelino in iraado tusaale ahaan waxaan sameynaynaa iskuul farsamo gacmeed ah. iskuul farsamo gacmeed ah magaalo Soomaaliya kamid ah laga furay, 100 arday ah la qaadanaa. marka cycle-ka koowaad ama wareegga koowaad meertada koowaad markii la joogo waxaa waaye qodistii oo kale waaye in iskuulkii la furaa ee ardayda la isugu keenaa maxay qarashayna gelinee, maxaa faa'iido ku jiro. midda labaad oo ah ardayda tusaale ahaan waxaan barnay alxankii, waxaan barnay technology, waxaan barnay wax markii waxa gacanta ka sameynayaan warshad ahaanta ay u shaqeynayaan maxay culays ay keenayaan, maxay faa'iideyso dalku leeyihiin. markaan ayaga isticmaalayno oo qofka inta wixii la soo baro oo dalka uu isticmaalayo qofkaas muxuu culays u yahay, muxuu faa'iido u keenaa. iyo marka ugu dambeeyay qofkaas ama uu gaboobo ama uu duqoobo oo yacni ama uu geeriyoodo noloshiisa inta ka dambaysa eheladiisa isagay hadafka uu nolosha ka lahaa maxaa faa'iido uu dalku soo kordhinaa, dadka uu ka tagaysa maxay waajib iyo xuquuq ay ku leeyihiin dalka. marka wax kaliya lagu gaari karaa waxay tahay inaan fahanno qiimaha ishufka ama qiimahan LCA-ga oo maanta inta aadan wax talaa oo ama buuqa ama wanaaga aadan ummadda ku darin, horta bal adiga inta meel fariisatid qubaysa bal ishuf bal waxaad tiraahdaa waxa aniga aan dhahayo ama waxa aan sameynayo qolo kale qaladkeeda aanan arag, aniga maxaan ku khaldanahay, aniga maxaan taawa mid ku goonida. midda kale midda guud oo dalkaane waxaan u sameynaa inaan inta mushaar ka qaadano oon ku raaxaysano mise inaan dalkeena iyo dadkeena horumarino. berigii gumaystaha uu Soomaaliya haystay ama Talyaani ha noqdo ama Ingiriis ha noqdo, qofkay shaqaaleeyaan maadaama Soomaaliga uu necab yahay inuu gaal ama ajnabi u shaqeeyo, isagoo shaqadii fulinayo waxaa halka dhig u ahaa ereyga ahaa qowda maqashiyo waxna u qaban. oo markii wadooyinka Soomaaliya la dhisayay asoo wadada dhisaayo oo wuxuu haddana aaminsanaa qofka Soomaaliga
waddadan inuu gaal leeyahay markaas wuxuu dhihi jiray qawda maqashii waxna ha u qaban markii ilaahay naga kiciyey gumaystihii oo system dowladnimo aan qaadana qof kastoo ay dowladda shaqo siisayne wuxuu ka dhex arkaya wixii caqli gaala inuu yahay shaqo kastoo dowladda loo qabto marka qof waliba shaqada wuxuu u qabanaya qawda maqashii waxna ha u qaban maantadan oo waxaas oo dhan aan kasoo gudubnay hadda soomaalidii wax baratay aan dad wax fahansan noqonane qof dadku waxaad arkaydaa in weli loo shaqaynayo tiimka markaan jooga la shaqayso yoomka aad rabta ka qaado laakiin markaan inta anagoo saa shaqada u qabanayna aan caqliyadeena inta bedelna nidhaahdo waniba tiim uma shaqaynoye waxaan u shaqaynaa waa dadkayga dalkayga iyo diintayda waxaa waaye qofka xumo ama ciidan ama sharci laguma ilaali karo qofka waxa lagu ilaali kara waxaa waaye in anshaxiisa la dhiso anshax inuu dhismana waxa kaliya ay ku xiran tahay in qof kasta aan fahansiino qiimaha ishufka uu leeyahay oo qofku uu dareemaa waraan maanta maaga markuu bariyay ilaa caawo maxaan qalad oo sameeyay maxaan wanaag oo sameeyay marka taa ka hadlaydana ma ahan wax adiga kaliya kugu koobanay xitaa adduunyada aad ku noolad ama dalka aad ku nooshahay maxaad qalad oo ku samaysay maxaase wanaag oo ku sameeyay marka aad dambigaaga qiranaydana haddii aad u qiratin anta ku saamaxno aad haddana sida ahaato iyadoo isla ay wax fiican tahay waxaa ka qurux badan inaad dambigaaga u qirato inaad ka qowmameynayso gafka kaa dhacay taa marka waxay soo celinaysaa in wixii wada lahaanshihii oo noo soo wada noqdo ee aan fahno ilaahay meeshaan nagu abuuray dalkaan aan leenahay marka ishuf brotherkay gabadha walaashay wiilka walaalkayow ishuf adiga isku mashquul adiga is sax kadib wax walba way hagaagayaan waa mahadsantahay